haddii aad jeceshahay amase aad doonaysid inaad timahaaga si degdega u bixisid haddaba saliidan isticmaal. Timaha ayay si degdega u bixinaysaa, timahana way nafaqeynaysaa, waxayna ka dhigaysaa jileec, madow, xariir ayay timaha ka dhigaysaa, halweynna way ka dhigaysaa, weliba si degdega ayayna u bixinaysaa, timahana dhabarka ayay geynaysaa. Waa saliid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walbo aad joogtiin, ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty oo uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin waa Denisida, cashar kale cusub ayaa inoo wadaa maantay. waxaan inii sidaa walaalahayga alaabtan weelka noogu jirto. alaabtaana waa saliid. saliidaana waxaa la marsanayaa timaha, waana saliidii timaha nafaqeynaysay oo bixinaysay. weliba saliidan saliid ma tahay ma ahan, waa saliid maasha Allah ah oo nafaqo leh oo timihii si degdeg u bixinaysa. 1 week oo kaliya haddii aad isticmaashid resultigeeda ayaad horey ka arki doontaa insha Allah ilaahay idinkiis. waana saliid aad u nafaqo badan oo timahana si degdeg u bixinayso, timahana dhabarka geynayso, timahana madow iyo jileec iyo xariir ka dhigayso, timahana nafaqeynayso. marka maanta saliidaas aan wadaa, waxaana jeclaystay saliidan inaan la share gareeyo si aad uga faa'iidaysatiin walaalahayga. marka saliidaas ayaa maanta sameysanaynaa insha Allah, kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameeyay iyo sidaan u sameeyay. saliidan waa saliid cajiiba oo aad ka wada heli doontiin insha Allah, waana saliid aad iyo aad u fudud. bismillaah, saliideeni ayaan sameysanaynaa walaalahayga timaha bixinaysay. marka hore waxaan soo qaatay birkaawo, birkaawadana dabkaan soo saaray, dabkana weli kuma daarin, birkaawada gadaal ayaan uga daari doonaa. u baahan tahay xulbad ayaa u baahan tahay. weelka yarka waxa igu jiro oo birkaawada aan ku shubaayo waa xulbadana waa taasa. xulbada marka waxaan ku sameeyay mooyaha ayaan kusoo garaacay oo xoogaa waa soo jajabiyey wax yar, mana budaynin. marka sidaas ayay noogu soo baxday. sidoo kale waxaa u baahan tahay xabasoodada mirmiraha oo madowga ayaa u baahan tahay. hal qaando xabasooda ah ayaa waxaa ku shubanay birkaawadeeni dabka noo saarneyd oo noogu jirtay xulbada. xabasoodadana waa taasaa walaalahayga, waa midii mirmiraha ahayd waay, ma aha midii burburkeed. xabasoodada ayadaa laba nooc, mid burbur iyo mid mirmiraha. marka midda isticmaalayna waa midda mirmiraha ah oo yaryarka. hal qaanda ayaan ku shubanay. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa saliidan qumbada ayaan ku darsanaynaa, waa saliid qumbo waayo walaalahayga. midda waxaan isticmaalaynaa caaga, waana isticmaali kartaa saliida oliiliifada ama saliid qumbaha, midda gasaca ku jirtana waa isticmaali kartaa. marka waxaan ku shubanaynaa alaabteeni dabka noo saarneyd, saliid qumbadii ayaan ku shubaynaa walaalahayga noogu jirta caaga. saliidan qumbo kaliya ma ahan, waxaa ku jiro kala afakaadho iyo dacar ayaa ku jirta, ayaa meesha ku sawiran, laakiin shiirkeeda qumbo ayuu u egyahay. marka sidaas ayaan usoo gatay walaalahayga. saliid qumbadii markii aan kusoo shubay walaalahayga, dabka ayaan haatan ku daarnay. dabka haddaan ku daaray. marka alaabtan waxaa la rabaa inaa waqti ku karisidaa la rabaa oo daqiiqado yar inaa ku karisid. waxaana ku karinaynaa 7 daqiiqo oo kaliya ayaana ku karinaynaa walaalahayga. xabasoodada iyo xulbada iyo saliida ayaan waxaa isku karinaynaa 5 daqiiqo. intaas dabka inaa u gaabisidaa la rabaa oo aad ugu gaabisid. haddana gadaal ayaan alaab kale fudud ayaan uga darsanaynaa. alaabtaasna waxaan ku karinaynaa 2 daqiiqo kale ayaan ku karinaynaa. saliida waxaa la rabaa inaa time daqiiqadaheeda inaa saxdid oo waqtigeeda aad la socotid, haddii kale way kaa gubanaysaa ama way kaa halaabaysaa. marka waa inaad timekeeda ilaalisaa. dabkana waa inaa aad ugu gaabisaa. dabkana aad ayuu noogu gaaban yahay. haatanna waa karinaynaa, markasi dambeyso ayada ayaa is soo bedelayso. marka 5 daqiiqo ayaan haatan karinaynaa. dabkana aad ayuu ugu gaaban yahay walaalahayga. saliidan waxaa waa saliid dhaafta, waa saliid nafaqa oo maasha Allah ayay timaha ka dhigaysaa. sidoo kale saliidan timaha madow ayay ka dhigaysaa. timaha haddii xitaa ku adag yihiin jileec ka dhigaysaa, timahana way jilcinaysaa, madowna way ka dhigaysaa, wayna bixinaysaa walaalahayga. saliidii iyo xulbadii iyo xabasoodii markii aan isku soo karinay hadda sidaas ay noogu soo baxday. 5 daqiiqo kaliya aan karinay. marka waxaan ku darsanaynaa basal oo hal xabo oo aan soo jarjaray ayaan ku darsanay walaalahayga, waana basal guduud. hal xabo oo aan soo gogooyay ayaa waxaan ku darsanay saliidii. markii aan 5 daqiiqo aan isku karinay xulbadii iyo xabasoodadii iyo saliidii. haddana waxaan isku karinaynaa basashii iyo xulbadii iyo xabasoodadii iyo saliidii ayaan isku karinaynaa. 2 daqiiqo kaliya ayaan isku karinaynaa walaalahayga. ma rabna inay basasha ay naga gubato oo saaid inay u madowaato, lama rabo. marka 2 daqiiqo kaliya ayaan isku karinaynaa. waxaan la rabaa alaabta inay kor taagnaatid, inaa ka dul tagtid lama rabo, haddii kale way kaa gubanaysaa. waayo ayada dhanba 7 daqiiqo aan ku karin. 5 daqiiqo hore oo aan markii hore aan isku karinayno xulbada iyo xabasoodada iyo saliida, iyo 2 daqiiqo haatan aan basasha aan kula karinayno.
time badanba ma qaadanayso. Marka 7 daqiiqo waa inaad kor taagnaataa oo si tartiib u karisaa, dabkana waa inaad aad ugu gaabisaa. saliidii waa noo diyaar walaalahayga. 2 daqiiqo waan kusoo karinay basashii iyo saliidii. marka haatan dabka waan ka daminaynaa. waa inoo diyaar. markay basasha sidaas noqoto inay zaaid kaaga madoobato lama rabo, aad haddii kaaga madoobato way kaa halaabaysaa. marka waxaa la rabaa basasha kalarkaas brown oo kaliya inay ahaato. marka haatan dabka waan ka daminay walaalahayga. intay noo qaboobayso ayaana sugaynaa saliideena. markii ay noo qabowdo ayaana miiranaynaa. saliidii way noo soo qabowday walaalahayga. waxaan soo qaatay miirihii yaraa iyo weel yar aan ku miirano. marka haatan waa miiraynaa, qashinka iska reebaynaa. saliid oo kaliya oo nadiif ah ayaa anaga u baahanahay. maasha Allah, saliid nadiif ah ayaana noo soo baxday. hadda lagama sheekeyn karo saliidan. saliid dhaaftay waa saliidaata ayay noogu soo baxday. wax qashina ma lahan. saliid yar oo nadiif ah ayaa nooga soo baxday. maasha Allah tabaarakallah. marka haatan waxaan ku darsanaynaa alaab kale oo ayadana timaha noo nafaqeynayso oo jajabka iyo siibitaanka nooga biinayso. waxaana ku darsanaynaa walaalahayga capsule-kan ayaan ku darsanaynaa. capsule-kan hore ayaan kugu sheegay timaha aad ayuu ugu fiican yahay. jajabka siibitaanka wuu ka ilaaliyaa, wuuna ka dhameeyaa, timahana wuu bixiyaa. aniga ayaa isticmaalay, maasha Allah waana ku faa'iiday. marka capsule-ka ayaa ku darsanaynaa. capsule-kan waxaa lagu gadaa meelaha shopping-ka. capsule-ka tinta iga gad oo kaliya ayaa dhehaysaa, markaas waa laga gadayaa. marka waa kaas walaalahayga capsule-ka ayaan ku darsanaynaa. 2 xabo capsule ayaana ku darsanaynaa. meel walbo shopping-na capsule-kan waa laga helayaa. 2 xabo capsule ayaan ku darsanaynaa. capsule-kan aniga wax walbo aan sameysanayo waan ku daraa. saliid hadaan karsanayo waan ku darsadaa, shaambo hadaan hagaajisanayo kale waan ku darsadaa. maasha Allah, marmarna timaha caadi ayaa u marsadaa. marka waa capsule cajiib oo aan ahaan aan ka helay, sidaas ayaan idinkaga faa'iideynaya walaalahayga. jajabka iyo siibitaanka ayuu timaha ka dhameeyaa iyo googo'a. capsule-kii ayaan ku qasaynaa. 2 xabo waan kusoo daray. marka waa isku qasayaa, si fiican ayaan isku dhex gelinayaa capsule-kii iyo saliidii si ay si fiican iskugu milmaan oo si fiican isku dhex galaan. capsule-kana waxaa waay maasha Allah ayuu timaha ka dhigaa. marka haddii timaha ay ku jajabayaan oo ku siisiimayaan oo ku googo'ayaan, soo gado mar walbo saliida markii aad karsatid oo kale ku darso, asagoo caadi madaxa marso. maasha Allah ay timaha ku noqonaya, timihiina wuu bixinayaa, jajabka iyo siibitaanka iyo googo'ana wuu ka dhameynayaa walaalahayga. saliidii capsule-kii markii aan kusoo qasay walaalahayga, sidaas ayay noogu soo baxday saliideeniina. hadde ugu dambeyntii sidaas ayay diyaar noogu tahay. maasha Allah tabaarakallah. kaliya haatan waxay u baahan tahay in la isticmaalo. marka haatan waxaa in la share gareynayaa sida loo isticmaalayo walaalahayga. marka hore waxaa sameynaysaa saliida ayaa marka hore soo qaadanaysaa. kabacdi markii aad soo qaadatid timaha ayaa marsanaysaa saliidii. timahana ma la rabo had saliidii inaad gab iskaga siisid. timaha intii aad qabatid oo kala shallaysid, salka meeshay ka soo baxaan ayaad saliida ka marinaysaa, uga masaajeynaysaa, oo wada gaarsiinaysaa. timaha intaa marba qayb shallaysid oo aad salka saliida ka soo marisid, haddana korka ka mari, geesaha ka mari, kabacdina duuduub oo laalaab ku joog. maasha Allah ayay timaha ku noqonayaan, si degdeg ayayna kuugu baxayaan. saliidana ayadaaba nafaqa oo timihii nafaqeynayso. marka haddii aad sidii loogu talagalay u isticmaashid, hubaal waay timaha inay weliba si degdeg kuugu bixi doonaan, dhabarkana ay ka degan doonaan, timahana ay ku noqonayaan timaha weyn oo jileeca oo xariira oo madow inay ku noqon doonaan insha Allah ilaahay idinkiis. marka waxaa la rabaa saliidan inaad si toos u wadid oo timaha si fiican aad ugu shubtid oo timahana aad si fiican ugu nafaqaysid. weliba habeenkii markii aad seexanaysid, intii aad timaha marisid oo kala shallaysid oo duuduubtid aad ku seexatid, subaxii markii aad soo kacdidna aad timihii intaa shallaysid aad isku xiratid, hubaal waay timahaaga inay dhabarka ka degan doonaan muddo 2 weeks haddii aad sidaas aad si toos ah u wadid saliidan. oo habeen kasto aad timahaaga intii aad ku shubtid aad ku seexatid, subaxiina aad shallaysid oo timihii aad israacisid oo taakadaada aad ku xiratid, timaha inay si degdeg weliba intay kuugu baxaan ay dhabarka ka degan doonaan insha Allah ilaahay idinkiis. ayna timaha ku noqon doonaan jileec iyo xariir iyo madow. waayo saliidan ayadaa nafaqa oo timihii nafaqeynayso oo kobcinayso oo korinayso. saliidanna waxaan ka samaysanay waxyaabo aad u nafaqo badan ayaan ka samaysanay oo timahana aad iyo aad u nafaqeeyo oo xagga timahana lagu gaarin. waxyaabaha aan ka samaysanay saliidanna waxaa kamid ah xulbad. xulbadana laguma gaaro timaha. timaha si degdeg ayay xulbada u bixisaa. xulbada saliida laga hagaajiyo. haddii xulbada nafaqa ahaan timaha loo marsado
way bixinaysaa oo intii nafaqo ahaan loo hagaajiyo loo marsado. Haddii saliid ahaan loo hagaajiyo oo timihii la marsadana way bixinaysaa. Sidoo kale waxyaabaha aan ka samaysana waxaa kamid ah basal maa timaha lagu gaara ayadaaba basasha timaha bixiso oo nafaqo iyo fitamiin siiso timahana si degdeg u bixiso. Sidoo kale waxyaabaha aan ka samaysana waxaa kamid ah walaalahayga xabasowdadana timaha way madoobaysaa wayna jilcisaa ayadana ina bixisaa walaalahayga xabasowdada timaha madow iyo jilaac iyo xariirna way ka dhigtaa. Marka ka faa'iideysta hadda saliidan nafaqadeeda halkan laguma soo koobi karo walaalahayga waa saliid balaas nafaqo waaye hubaal inay timaha si degdeg kuugu bixi doonaan insha Allah oo lagu dhihi doono sirta aad timaha ku bixisay noo sheeg insha Allah ilaahay idinkiis walaalahayga. Fiidiyogaana sii share gareeya asxaabtiina la wadaaga like-ta naga hilmaaminina. Haddii aad channelka ku cusub tahay soo dhawow minankaaga waaye channelkana subscribe saar. Haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogaaga quruxda badan.